السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعد فتاح اسمان وارق marka hore maanta barnaamijka la falaqaynta siyaasadda waxaan ku eegi karnaa sidee laba mowqif oo u kala duwan sida Soomaaliland dadkeeda iyo dadka koonfur ku nool loo rumaysan karaa. maanta waxaan barnaamijkeena ku eegaynaa falaqaynta doodaha waxa weeyaan Soomaaliland miyaa laga yaabaa inay mar la midoobi karto Soomaaliya oo sidii 1960kii dhacday ay Soomaaliland ku noqon karto iyo Soomaaliya kula midoobi karto. horta go'aanka aan cabsi ahaan markaan eego ma yeeyeen kulli marka hore waayo sababtan waxaan ku sababeynay dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland 70% waa dhalinyaro waayo dhalinyaradaas oo intooda badan ku soo ababtay Soomaaliland oo gooni u taagan iyo iyadoo la leeyahay dadkii idin dibay waa kuwa waayo qadiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan arkaa inay tahay mid lama taabtaan biyam ka dhibacaana. sababtan waxa weeyaan رجيمك محمد سياد برهدي باتوين وين بوكاسي ولي waxa alaakaasi muuqda raadadkii iyo naafooyinku geystay shacbiyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan sababta daraadeed ay shacbiyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland marnaba aanay u aadi doonin xamar waxa weeyaan sababta kale tole aan loo aadi doonin markasta rajimkii iyo ka hadda jooga waxa ay ku inta ku taamayeen sidii Soomaaliland ay u dhibaateyn lahaayeen ani wax kasta oo ay awoodaan hadii ay gacantooda nafsada ku hayn lahaayeen oo uga shari lahaayeen way waxa ognahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo afartii sano xilka joogay Soomaaliya dhibaatadii Soomaaliland u gaarsiiyay wadaagta inuu IMF hay'adda dhaqaalaha adduunka warqad u qoray oo yiri Soomaaliland wax deeq lama siin karo baanka adduunka wadaagtii wuxuu hay'adaha dhaqaalaha Soomaaliland siin jiray in xuriyad dhaqaali hay'adaha Soomaaliland siin jiray wayna laga joojiyay lacagtii la macaamilka Soomaaliland la macaamilaya taasina waa khalad oo gaf oo ka gala ummad Soomaaliyeed mararka qaar wax oraysa qofkani Soomaali ma because waa dad Soomaaliyeed ayaa u doonaya inuu noloshooda qasaariyo oo ay ku balanbalaan ama hoof iyo balhoof ay u noqon lahaayeen taasina waa tan ka digano dhalinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay dalkiin waa dal midaysan nabad baynu haysanaa horumar baynu gaarnaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waayo marna uma tijoori doono uma jinixi doono dhibaatada inagu hayo cadawga Soomaaliya waayo mar baynu ka cilbixi doona mar baynu ka saran itiraafkana 3 sano in ka badan ba waanu samrinaa sadankeeda adaynu ku qaadanayso anagu Soomaaliland haddaanu nahay goonideeda waanu taagnaanina waayo dhibaato mad waxaan ugu filan intii hore aanu geysanay waayo si khalad ah ayaan waxaan ugu tagnay dal shisheeye oo Soomaalida ka baxsan oo bini'aadnimada ka baxsan wadagta oo dadkii gobolada waqooyi ku nool barbariyi burciyo yaha geysa sida loo gumaaday wadagta wali ala kana xabal wadaradii qaar aan la helin qaar aan la helay markasta la soo saaro dad la aasay sababta daraadeed waa sababta uu leenahay dawladda Soomaaliya ma aha dawlad la isku aamini karo waayo wada hadal kasto la galo waxaan leenahay anagu Soomaaliland hal mowqifan aan midaysan waa goonisitaga Soomaaliland oo muqaddisa markasta iyo meel kastaba Soomaaliland waa dal jira oo la yaqaano Geeska Afrika ku yaala 1960 ayuu Ingiriisku xorriyad siiyay wadajna adiga Talyaaniga ku gumaysanayay anaga kula nimi Soomaalinimo aanu ku nidho laakiin waad garin weyday Soomaha uu fashilmayso waa la kala tagay Soomaha anaga haddaanu nahay Soomaali weligeena Soomaali gaar ahaan hadna waxa aku Ingiriisku loo dhigay ee adduunyada iyo Afrika ku dhaqanto hadii maanta garow disheeda 7 kiiloomitir xadkii ku jiro waajib baan u leeyahay inaan gale laakiin inta waxaan diiday inaan dhiig Soomaaliyeed aadiyo waayo dhiiga maanta Soomaaliyeed daay arorta kamaanta ayaan dareemi karaa dhibaatadu leeyahay maanta hadii 400 oo askari ay dhintaan labada jinaxba ay 800 dhintaan aniga 800 dhintay waxa ay gala qiimo badan inaan dhowro 800 dali doonaan waayo Soomaali badnaanshaha ayaan rajacala laakiin markaan si weego waayo waxaan arkaa dad man xayaala waxaan arkaa dad maxay tahay gaala ah dad Soomaaliland laayay dad dhiig gale oo godob gale aan u arkaa waxa la yaab laba halkii dadkii godobta gale laga maxkamadeeyay inay maanta qaar kamid Soomaali xiyal ka hayaan laakiin taa waxa ka sii daran dadkii dadkooda la dhibaatay markay u shaqeynayaan farmaajiyo dhiga lamida maxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guureed adeer ninkii adeenta dawladka gooyisay Soomaaliland dhibaatooyin geystay waxa cadeemo badan baa loo hayaa dad badan buu dilay marka waxaan ku oran lahaa dadka Soomaaliyeed tagana waa dad baatina dal baa leeyahay Soomaaliland bay dimuqraadiyadda tahay Soomaaliland ina ku kalsoonaada